Okay, kusoo dhawaada casharadeenii basic aan ku bixinaynay Excelka. Maanta waxaan kusoo qaadanaynaa sida loo sameeyo how to create a chart markaa haysatid numerical data information u baahnayd. Waa fudud yihiin. Chartkana macnaheedu waxa waaye waa visual representation qofka inuu indhaha uu ku arko sawir ahaan warbixintii. Marka waxaad dooranaysaa daarada intaa rabtid aad dooranaysaa, halkaana tegaysaa insertka tegaysaa. Recommend jaadu leeyahay laakiin jaadad badanaa inta aad ka dooran kartaa. Marka kaa recommendka aad taabso okay dheh. Waa kana marka wuxuu ku siiyey maaragtay informationka u baahneed ku siiyey. Marka hadda inta kan oo kaleeto intaan hadda waa January oo isku keenay, February oo isku keenay. Waxaa ka dhigan kartaa marka waxaa ka dhigan kartaa store ka dhigan kartaa. Waa dhihi kartaa waxaan rabaa store walba in maaragtay chartkiisa maaragtay uu isleeyahay. Waa kana marka saan oo kaleeto hadda Minneapolis store hadda waa Minneapolis January, kan hadda waa Minneapolis February ilaa Minneapolis. Marka Minneapolis store wuu group gareeyay, Bloomington wuu group gareeyay, Mankato wuu group gareeyay. Chart elementiga kale intana waa maaragtay waa ka maamulan kartaa wixii aad u baahan tahay oo maaragtay aad ku samaysan kartaa. Waa filter gareyn kartaa chartka isaga laftirkiisa. Waxaa leedahay waxaan rabaa inaan isku fiiriyo. Waxaan rabaa inaan isku fiiriyo January oo ah all the stores. Aan rabaa leedahay apply dhehaysaa marka oo jeedaa marka Minneapolis January 45,620, Bloomington 18, St. Paul store 20, Mankato store ugu yar oo 15 ah. Marka saasna waa u filter gareyn kartaa oo compare gareyn kartaa. Haddaad doonto waxaa leedahay may waxaan rabaa all months iyo all maaragtay category-ga bilihii oo dhan. Marka waa kaas Mankato just marka information-kan iyo kanna waa connected waay, waa isku maaragtay waa isku xiran yihiin. Haddii aan inta ka dhigno January ma ahayn Minneapolis store 45,000 ma ahayn, qalada la sameeyey. Waxay ahayd 25,200. haddaan dhahno fiiri marka bark January Minneapolis hoos u dhacay. haddaad dhahdid February ayadana 35 ma ahayn, waxay ahayd keliya 10,200. akaasaa hoos u gal ujeedaa 10,000. marka waa numberka iyo chartka waa related. inta haddaa wax ka bedeshid intana waxbaa ka bedelnaa. marka haddaan dib u noqono control C aan taabano waa arkaysaa chartkii wax ku noqday meeshiisu ku noqday. marka chart badan maaragtay designkaas chartka markuu soo baxo aad samaysan kartaa sidii maaragtay adiga ku markaas personally kula qurux badan aad u dhisan kartaa. waxaa kaloo samayn kartaa, waxaad dhihi kartaa inta maba rabo hadda the same page chartkii informationki yaalaan waxaan rabaa leedahay inaan geysto chartkan inaan geysto meel maaragtay cusub. marka waxaa leedahay move. waa kana move aad taabanaysaa. waxaa leedahay new sheet ige informationka new sheet ku keenay halkaana ku maamulaysaa. kabacdina informationka dadkii maaragtay ay qusaysay oo ku dhahay noo soo dir chartska noo soo dir u diraysaa. marka intaan waxaan ku fiirinay maantay sida ay ku habboon oo maaragtay loo samayn karo. si fududaa jirtaa. hadda waxaan isticmaalaynay taabka isticmaalaynay, haddana chart groupskan tegaynay. si fududaa jirtaa. haddaa markaa informationka aad rabtay aad select garaysatid waxaa qabanaysaa alt iyo F1 kusoo boodaya. marka chartka already waa haysataa bis intaa ku samaysane. inta laftirkeeda hadda waa move gareyn kartaa. type upkiya inta ka bedeli kartaa typeka rabtid. waxaa ka dhigan kartaa column, line, mujada bar baya ka dhigan kartaa, waterfall ka dhigan kartaa. sida adiga markaas personally kula qurux badan informationkan u hagaajinay kabacdina waa diraysaa. marka intaas waxaa ku gabagaba ah sida loo sameeyo chart adigoo isticmaalaya Excel. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.